islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaara la dhigto waa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Hirshabelle Mudane Cali Jeyti Cismaan oo soo gaaray deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan kana mid ah deegaanadii bilaa ka hor qawaariijta argagixisada al-shabaab laga xoreeyay isla markaana wacad ku maray in tallaabo adag laga qaadi doono shakhsiyaadka ku kaca falalka burcadnimo. hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan waxa uu ka jeediyay goob fagaara ah oo isugu yimideen boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan kuwaas oo kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeyti Cismaan ee soo gaaray deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan. qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka xulumudiinka iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Xiis oo goreen goobta si wada jira uga hadlay ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan uga mahad celiyay doorka iyo abaabulka ku dhisan cadaaladda iyo hogaaminta wanaagsan ee reer Hiiraan uga adkaadeen qawaariijta argagixisada al-shabaab ayaa ku taageeray gudoomiyaha go'aanka ah in tallaabo sharci ah laga qaado dadka ku kaca falalka burcadnimo waxayna wada jir u ballan qaadeen in gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo qof walba ee ka shaqeynaya in sida shabaabka loola dagaalamo shakhsiyaadka ku kaca xilliyada qaar falalka burcadnimo kuwaas oo xilliyada qaar dhibaateeya dadka safarka ee isaga kala gudba Muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka. hadda waxa loo baahan yahay jidkan sida hadda nolol sheegay hadalka horudhiciisa waxa laga hadlaa waa isbaarooyin jidka la dhigtay wadankii la xureeyay in isbaarooyin la dhigtay arintaas waxa laga hadlaa dad islaam oo safar qofkii dhaco ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalinta qiyaamo hortiisa hadduu tago in alle intuu xaqooda qaato u imaan doonaan xaqa bini aadamkana haddaana bini aadamku ku cafin ilaahay ku cafin ma ogow waxaan soo dardaarmaynaa marka dadka reer Teedaan iyo deegaanada kale oo nala ka maqlaayaba dhibaatada uu leeyahay dulmiga bini aadamka la dulminayo gaar ahaan midka musaafirka ah deegaanka dhan uu saameeyna saamaxayl xoolo dadka musaafirka ka soo dhacay maqaayadu ku gadana maqaayadii markuu ku gato wax alle wixii lacagtaas iyo maartay raashinkii lagu soo gado bulshada dhamay gaaraan qoom dhamma waxa loo halaagay nin taariku salaada oo uga dhaqdhaqday biyo meeshii ka cabi jireen markaas biyo markay qaadeen in alle intii xaafad la geey ilaahay cadaab ku soo dejiyay ummadii hore waxa way marka hadii muslima oo masaakiina oo jidkaas mara xaqooda yan dhacno maqaayadaha in la yimaado lagu cuno raashin ku dalbano dhar ku dalbano waxaan libisanahay waxaan cunayno waxaan ciyaalkeena dugsida ku jiro u geynaynaah ma xalaala intii xalaalkana waa xaraam qofka lacag soo dhacay hadii wax ku iibsado beecaas ma ansaxay ma ansixin maxaa dhacay lacagtaadu aad milkisan tahay waxaad ku gadataa beeca ku ansaxa ma lacagni laga soo dhacaa milkisan hadii biici ansixi diida marka cuntadaadana waa iska siiday adaasi bilaash u siinay ka mooryaanka soo dhacay lacagta ka qaadana waa gacantii labaad oo dhacdaad noqoni ogow gacanta labaad oo dhacdaad noqoni sharciga islaamka oo ilaahay jiday wax ka wanaagsan adduunka ilaahay ma keenay oo lagu kala bixi karo ma jiraan sharciga islaamka ilaahay markuu keenay wuxuu ogaay ummaddu sidoo ku badbaadi waxaan rabnaa marka maanta ilaahay sidoo noo jiday sidaas ku badbaadi karnaa inaan go'aankeenu sidaas noqdo oo sharciga islaamka ku qabanno dadka jidkaas galaayo qofkii jid galo oo hanti islaameed dhaco lugii gacan isdhaafa laga goyno ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo jiday waa laga goyna gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa sigana hadda waaba noo sheegay inuu maxkamadda dadkaas la cugsado geeyo annagana haddaan islaamnimo iyo ilaahay kitaabkiisa dad u damqana oo muslimkii masaakiinta u naxa aanahay inaan ku ayidno oo dadaan naga xirana oo nala ka xiran hanala soo deeyo dadka dhahayo inuu arinta ka waantoobo war ma sharciga ilaahay iyo tuug jid laga qabtay ma dadkii qabtay ma maslaxaday wadaan mise dhibaatay wadaan maslaxaday wadaan annaga danteennay wadaan waxa la rabaa marka kulligaan in wada duubano lugi gacan laga gooyo kii qof dilana iyo loo dilo waliba la salbiyo sida sharcigu sheegaa ilaahay annaga wax nooga roon ma jira sidoo noo sheegay waa sida noo roon jidkaas dadka islaamku maraan oo nabadgelyo in lagu marar rabo ninka ku dheela ninkaasu nin magacayna iyo manfaciidkayna iyo waxana haba baabi'iyo in la diriro oo laga saarana muxuu ahay raalli baan ka nahay waan aqbalayna
mana dhahayno haddaan kadib ayaan shir u gelaynaahe muxuu ahaa wiilasha la soo waanina ma dhahayno baaq waxaan u diraynaa dadkaas dhalay oo wiil walba dhalay oo soo deeyey oo meel kastoo joogo waxaan baaq u diraynaa inay jidkaas ka ilaashadaan tuugada raalli kama nihi islaamka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalim aniga hadda midkaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaa wiilkiyaa iga xihan ciddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan waxayna noqonaydaa inaan awal raalli ka ahay inuu birina ii dhaansho birina xoogaa macawusii wax kala yimaado haddaanu marka runta ka hadlayno ninkii wiilkiisa la qabtay ama ka walaalkii la qabtay oo maxaa lagu qabtay sharciga islaamkoo gol maray haddii lagu qabtay haddaa diidda sharciga ummadda raacsan oo kutubka ogol kaba mid maayo soo dhowaadha aadaad u mahadsantihiin garabaan idin siinaynaa waa inku raacsannahay awalaan idin sugaynay wixii laga maqnaana loo sheegay waxaan codsanaynaa nin jidka galay oo muslim dilay oo la dilay haddaan aragna waa ku farxaynaa asoo hintinaa howluga gacan laga gooyo jidka maraa meeshuu labada lugood ku mari jiray ama labada gacanood ku laafiyoo jiray laba ka maqan tahay haddaan aragnana waa ku farxaynaa haddii mid ka mida la masaafuriyo la waayo wiilkii reer hebelo waagii laga qabta xagarta ama meesha la yidhaaho qow intaa u dabbayday lama oga ma nool yahay ma dhinta haddaan maqalnana waa ku farxaynaa aadaad u mahadsantihiin annagu reerteedaan haddaan nahay tuugada lambarka koowaad oo ka howlgalahaan ka midna waxaan naga maqan inaan nala qabsan kii qoorta laga gooyo la yidhaha xasan daboolayaa ka gooyo oo maamul aan u helno oon xugum u helno oon annaga lala ku soo leexo asalaamu calaykum waraxmatullahi annagu waxaan leeyahay jidkaas asagaan u daynay garabaan ku siinaynaa raalliyaan nahay waxaa shareecada kitaabka ilaahay waxa uu qabo inuu tuug lagu qadana raalliyaan nahay shabaab oo sidii loo galay aad og tihiin oo jabay hal xamboo ka midow inuu xilligan soo wactamo waxaa idiga ilaali jirnay hadda ma aragteen masaafurkee laydigu kor dhibaatayna inuu soo yidhaahdo ma wax aan u dulqaadan karnaa war allah idigu dhaarshay aan iska qabanno nimanka tuugada oo magacayna surud xumayna war dadka annaga aan naqaano hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel aan leenahay ee inta maqaayadan ka casheeyo caloosha buuxsado duurkaas u galaya baabuur leyla calaawi oo gabar masaakiinow ay saaran tahay annagowna suurad xumaynaya war ummadda masaafurka ah inaan nabadgelinno oo markaan aragno aan dhahno meeshaan biyo kacaba oo hataa cuntada aan haddayna gada karin aan farii ku siino yaa ka qaymo badan yaa nooga fiican dadka masaafurka ah ee halkaan marayo ciddii ayadoo dhibaataynaysa maamulku ay qabtaan oo ciidamada xooggu ay qabtaan oday ka daba garguurana haddii la arko waxaan ka codsanayaa maamulka inuu sigana uu ku daro gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo si adag uga hadlay dadka ku kaca falalka burcadnimo iyo waxyaabaha laga yeelayo ayaa waxa uu sheegay in gacanna uu kula dagaalamayo maamulkiisa qawaariij argagixisada al-shabaab gacanta kalena ay kula dagaalamayaan kuwa ku kaca falalka burcadnimo fariinna u diray bulshada ku nool guud ahaan deegaanada lagu xiriyay qawaariij argagixisada al-shabaab iyo waalidiinta dhalay shaqsiyaadka ku kaca xilliyada qaar falalka burcadnimo ay dhibaateeya dadka safarka ah islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaara la dhigto hadda yaa saaka geed ku xihan ama isbaara jirtaa nin baa xihana saaka naloo daaya arrimaa la leeyahay yo inaan isugu imaan ninkaan dariiqa isku helno yo inaan isugu iman eeg shabaab adduunkaa noogu garaabaya oo gacanna siinaya oo dawladda soomaaliya noogu garaabaysa oo gacanna siinaysa oo cuqubadiisa asagaa la tegayee wiilashiina cuqubada ay galeen ma meel bay la aadayaan soo idinkiidu ku dhicin mayso adinkaydii la dhex joogaan soo ma waraa da'daanaan joognaa bishii lixaadaa noo dhalatoon duur ku jirnaa see wiilal badanaan godadgelinnay kuwa badanaa wada dhutayoo dariiqa maraya oo lixaadadoodii ku waaya kuwaa guryahoodii ka maqan oo aakhiro jira oo uga maqan in dadkani
gabdhuhu inay si fiican u laafyoodaan yaa laafiyo qumana bidixda inay laafyoodaan gabdhuhu ayaa wiilal guryahoodii uga maqan yihiin soo ma waxaan hadalkayga ku soo xirayaa odayaashu aaday u mahadsan yihiin qofku wuxuu jiri karaa mujtamaca markuu qayb haysto saaka tuug ama mujtamaca haystaa soo in la cirib jara raalli kama ahidiin inaan ka adagayaan hubaaho ilaahay ugu ogyahay sababtu tahay mujtamaca uga dhex galo iga dhex dhuntaa ma jiro mar hadduusan mujtamaca dhex geli karin ma sii jiri karo war burcadow kuwa jidka gelayow ilmaada reebna kala badbaadiya soo gala ciidamada ilaahay u tooba keena xoolihiinna ilaashada furmaha nala taga cadowga wax ka dila taasaa idiina taariikh dhaanta idiina nolol dhaantee haddaad diiddaan haddaan guryihiinnu idi tabin oo meelaad ku dambayseen aan la weyn waxa aan ka shaqaynayaa baadil ahaa odayaasha iyo culimmada iyo dhallinyarada iyo gabdhaha dhammaantood waa mahadsan yihiin waryaaya balligaanoo biyo ku jiraan goormaa iniigu dambaysay ilaahay xumaan beriyuu ka yahay allaha subxaana wa tacaala xumaan beriyuu ka yahay meel xumaanu taale biyo geli maayaan meel xumaani taal nimca ma timaadaba bal nimcada inay bannaanka iska taal oo cidi kugu haysa maalintii halkaa aan ka soo galnay teedaan ee nimankii shaadiinta ceelkaa gubeen harraadkii meeshaan ka jiray ka warrama soo wax ilaahay lagu mahadiyaa saakamay ma muuqdaan kuwaas maaho oo nimcada ma ilaahay baan ku mahadinaynaa mase waa taqaburaynaa yaa nimcada ma ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ma allaan u noqonaynaa oo ma shukri iyo xamdi aan la imanaynaa mase waa taqaburaynaa islaamkaan dhacaynaa waxaasoo kale yaa arkay weligeed wartaa ma aqbali doonno aadaadna u mahadsan tihiin waxaanan hubaa inay dhammaadeenba wakhtigoodu xumaanoo dhan wakhtigeediyaa dhammaadaba ilaahay idankiisa khaalid xumaas maalka case warbaahinta qaranka deegaanka teedaan gobolka hiiraan